wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa maanta soo gaadhay xarunta gobolka Salal ee degmada Sayla. Socdaalkan ayaa waxa ku wehelinayay wasiirka isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee goboladan Awdal iyo Salal Cabdiraxmaan Jaamac Xadi, madaxa xanaanooyinka iyo MCH-yada Maxamed Xaaji Cumar Yaabe. Wafdigan markii uu soo gaadhay degmada Sayla ayaa waxa soo galbiyay madaxda gobolka iyo kuwa degmada Sayla. Ujeedadan socdaalka wasiirka ayaa ku suntanayd u kuurgelida xaaladda caafimaad ee gobolka Salal iyo sida ay u shaqeeyaan goobaha laga bixiyo adeegyada caafimaadka ee gobolka Salal. Kadib markii ay cabaar nastay ayaa wasiirka iyo wafdigiisii oo ay wehelinayaan maayarka degmada Sayla mudane Xuseen Iidla Barkhadle iyo gudoomiyaha gobolka Salal Cabdilaahi Farax Maydhane waxa ay kormeer lug ah ku soo mareen dhammaanba goobaha caafimaadka ee ka jira gudaha magaalada Sayla, isagoo oo wasiirku indhayn ku sameeyay qalabka lagaga shaqeeyo wasaaradda caafimaadka ee ka howlgasha magaalada Sayla. sidoo kale wasiirku waxa uu shakhsi u waraystay shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala gudaha magaalada Sayla, isagoo oo warbixin guud ka qaatay isku duwaha gobolka Salal ee wasaaradda caafimaadka mudane Tukaale iyo madaxa MCH-yada gobolka Salal Maxamed Cabdilaahi Caynaan. Markii ay soo dhamaatay kormeerka uu ku sameeyay goobaha caafimaadka magaalada Sayla ayaa waxa halkaasi uu warbixin kaga dhageystay gudoomiyaha ururka haweenka Alla Aamin ee degmada Sayla Marwa Khadiija Maxamuud Xergeeye. waxa uuna u dhacay sida tan: waxaan doonaynaa meeshii wax lagu baarayay wasiir waxa ka taagan aqal MCH mali boor jawtaan geynaa dumarkan boor man geynaa maanta wasiir oo hadii Ilaahay ku keenay wasiir oo maanta Ilaahay haduu ku keenay ama wasiirkii kalluumaysiga naga xidhay nagu noqon ya ama wasiirka caafimaadka wax noo furayaan ya soo wasiirku wuxuu sameeyay magaalo xidhan buu yimid waxba naga warbixin oo iska noqday adna waa noqdo nimaka wasiir oo fiican taa u yiraahdo waa soo aragtay markaa wasiirka wasiir aan aragno Soomaaliland horta waxa ku rumayna calanka wasiir adiga iyo wasiirka kalluumaysiga nooma yimaado wasiir وروسير مين نايم هذا سيل عي ما عرفنا عرب سيا أنت نجرتها ويتجا وسير هذا نقول نومي مدان وإحنا قالوا وانقرن لنا ما نقدر عنا طريقة يا جواد ركتي نورش هذا مقالة وادي كأركية سومالي لام باكاتر سناي على كيما ندول السودان ده ما قرنا أنا وحنا قد عاي وحنا نقول عاي نوع لو ذي دولة دني هذا على كي نقدر تكتم ما قرنا وسير نجا بيه هذا عفمت كجاجس سيل عدل لي تانو قلت جيده ده الطريق وكحرية ده أمع أيار قلت جيده بيه نجسي ده لهين أون دولة هين وأقل عفمت كدي سيء أون دريال عفمت لهين أون حنانة لهين يا أون مال بكانجيف بيا لا بكانجيف محون ما ضكوني ده حلا قدر يلين وسيرة وربحين ده نجاكي هذا أنا هواين كدق مدة النحس ولي ما قدامي أورك هواين اللي أمي بارح سو مقل ما يصير أنا كها وركاجي ترى هذا وسير كان يريد أنا كنت جايس أنا هذيك أنا وسير لكن هذا الكيما كله كورنا وين ما وصل هذا كهذا جنة يا حيدي لكن ما هو شغال الصعود وارنتا وحنو صعود وارن إنه قانو باهيدنا عاف ماذا تشتري وارن وكان شهر نقول من صفر كده نسوق لنا شو ده كده بيسوي حوي intaanu ogaano baahidina jirta in waxaanu ka qaban karno aanu ka qaban marka ku bishaarayso insha Allah inaanu wax badan ka qaban doono hawsha caafimaadka ambalaas iyo wadada soo naga hadasho ambalaasna noo kaliya iyo shaybaad dadka lagu shaybaad yaa kale iyo cabashooyinka kalena waa iska caadi taas madaxda kale khusayso taasi waa hoostan ka hadlayna labada hadaan helno ood meel shaybaad samayso ood ambalaasna keento ambalaasna ku soo ordan kuugu iman taasi kadib waxa uu wasiirka iyo wafdigiisii u dhaqaaqeen magaalada Looyacad oo ku taala xuduudka Soomaaliland ay la wadaagto dalka Djibouti, isagoo oo ay horkacayaan maayarka degmada Sayla iyo gudoomiyaha gobolka Salal. halkaasi oo ugu horeyn kulamo xaal waraysiya oo kula qaatay dhammaanba shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee magaalada Looyacad. sidoo kale wasiirku waxa uu fiiro gaar ah ku sameeyay qalabka ay ku shaqeeyaan, isagoo oo halkaasi ku gudoonsiyay maamulka caafimaadka ee magaalada Looyacad qalab casri ah oo loogu talagalay shaybaadhka. kadib markii
أو صار dhamaystay wasiirku hawlihii caafimaad ayaa waxa sida oo kale oo soo fiiriyay xarunta ciidanka booliska rugta loo yacdo taasi oo qarka u saaran in ay dunto dhismaha ay ciidanku ku jiraan oo ah mid aad u liita halka dhismayaasha kale ee laamaha dawladuna ay yihiin kuwa aad looga shaqeeyay markii uu wasiirku dhex tagay xaruntaasi waxa ay noqotay mid aad uga fajicisa sida ay ciidanka boolisku ugu nool yihiin goobtaasi waxaana tusaale ka bixiyay taliyaha ciidanka booliska rugta loo yacdo mudane Siciid Umar Madoobe si kastaba ha ahaatee socdaalkan kormeerka wasiirka iyo waftiga kuwa helinayay ayaa ku soo dhamaaday jawi aad u degan Wali Xajar Somali Channel magaalada